السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا وناسن داوديال soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan aan idin la wadaago wararkii ugu dambeeyay geyiga Soomaaliya macluumaadkan idin soo gudbin doona hadii Allah awoodo uu saamaxo waxa qayb ka noqon doona dhaqdhaqaaqyo xooggan oo laga dareemayo gobolada Sool iyo Sanaag kadib markii Puntland iyo Somaliland ay u heshiiyeen maamulka waqooyi bari waxa sidoo kale aan idin soo gudbin doona Xasan Sheekh Maxamuud oo si degdeg ah dib ugu soo laabtay Muqdisho heshiiska dhexmara Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe oo fashilmay qodobadaasi waxyaabo kale nagu soo kordhay ayaan idin la wadaagi doona soo dhawaada saaxiibayaal hadii tahay markii ugu horeysay kusoo biir oo subscribe channel kana daawanaysid muuqaalka like saar aragtida qaybta commentiga inoogu reeb marka la soo dhawaada qodobkeena ugu horeeya ayaan daawadayaal ku bilaabaya waa dhinacaas iyo gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidamada ah ayaa si weyn looga dareemaya gobolada Sool iyo Sanaag macluumaadka iyo wararka aan helayno ayaa waxay tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada طبعا dhaqdhaqaaqyadan waxay ku soo aadayaan hadii aad la socotaan heshiisyo waxa jiray is afgarad ah oo ay wada gaareen Puntland iyo Somaliland heshiisyadaasi dabcan waa kuwa xanaf leh cidii aragtay heshiisyada waxa ku qoran in ay labada maamul wada gaareen waa Somaliland iyo Puntland in la iska difaaco la burburiyo dhismaha maamulka waqooyi bari siyaasi lamida heshiisyada waxa sidoo kale ku jira in loo baahan yahay in la minjaxaabiyo cid walba oo isku dayda in ay Somaliland iyo Puntland ka dhex shaqeyso hadaba xogta halka markay joogto waxa soo baxaya faahfaahinada iyo macluumaadka la xiriira sidee buu noqon karaa dareenka la xiriira in Somaliland iyo Puntland ay weerari karaan maamulka waqooyi bari beesha majeerteen ee daarood iyagu hadda si toos ah uma weerari karaan maamulka waqooyi bari awoodaas nama lahan laakiin waxay sameyn karaan kaartooyin ah in ay ciidanka Somaliland hub iyo ciidamo hubeysanba ku taageeraan si maamulka waqooyi bari aan halka looga dhisin Saciid Cabdullaahi Dani hadii aad la socotaan iyo hadii kaleba wuxuu xoog xeelad dhaqaale diblomaasiyad ku bixiyay si loo fashilin lahaa shirki ay ka tashiga waqooyi waa ICC Khartoum hore loo oran jiray elaas cana ka dhacay waa uu ku fashilmay haddana wuxuu qaadayaa talaabooyin kale oo ah in la burburiyo dhismaha maamulkan Urdunka ah xogahan helena ayaa waxay tilmaamaysaa in dhowrkii saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay culeysyo ka imaanaya dhinaca Somaliland iyo Puntland taasoo keentay in heegan buuxa la geliyo ciidanka maamulka waqooyi bari garaadada maamulka waqooyi bari waxay yeelanayaan goordhow kulan degdeg ah kulankaas waxa la aaminsan yahay in diiradda lagu saari doono ilaa qodobo dhowr ah oo waaweyn iyadoo qodobadaasna wixii ku soo kordha aan arki doono haddaba maamulka Puntland iyo maamulka Somaliland maxay tahay ujeedada ay ka leeyihiin inay burburiyaan dhismaha maamulkan iyagu waxay Somaliland waxay aaminsan tahay in xuduuda Ingiriisku iclaamiyay oo Somaliland uu iclaamiyay ay ku egtahay meel dhaho yoocada oo garow u dhow halka Puntland laftirkooda ay leeyihiin anagana xuduudanada waxay ku egtahay aaga Buuhoodle marka waxa meesha ka baxaya waa dhismihii maamulka waqooyi bari oo loo tashaday sida ay xogtu tilmaamayso hadaba maxaa hadda socda hadda waxa socda wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya horta wuxuu sheegay inta wax socda aan idin sheegin wuxuu yiri anagu ma aqoonsanin wax la yiraahdo maamul waqooyi bari ah iyaguna nama aqoonsana marka waa inaan meesha ka saarno yaa meesha ka saaraya marka waa dabcan waa Somaliland iyo Puntland oo heshiiyay xogaha leelaya waxay tilmaamayaan in xaaladdu hadii sidan ay ku sii socoto ay wax badan isbedeli karaan xaaladuna ay tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin laakiin Somaliland iyo Puntland marka ay tigid sida ay maamulkan u minjaxaabineen u hagardaaminayaan reer waqooyi bari iyaga ayaa laga rabaa inay markan heegan buuxa galaan haddaan inta kaga gudbo dhinaca kale Axmed Madoobe wuxuu ku guul dareystay inuu Xasan Sheekh Maxamuud la heshiiyo Xasan Sheekh Maxamuud dib ayuu ugu soo laabtay Muqdisho heshiiskiina waa u burburay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madoobe mar kale waxa u bilaabanaya dagaal xoog leh ayaa u bilaabanaya xogtu waxay tilmaamaysaa in ay u badan tahay in dagaalkaasi gacmaha la isku tagi doono oo xaajadu ay tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin barakale ay tagi doonto laakiin Axmed Madoobe iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud hatta waxa ay kala naaquseen oo ay kala diideen in magacyadooda ay ku baahiyeen warburtiyad goor la soo saaray ayaan arkay kaasi oo fajac iyo la yaab ku noqday dadka Soomaaliyeed sababtoo ah waxa meesha ku qoran iyo waxa ay ku dhaqmayaan Axmed Madoobe iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud waa wax aad iyo aad loo la yaabo khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin fashil ay dhex fadhiyaan
axmed madoobe iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud sababtoo ah waxay ka heshiin waayeen danihii ummadda soomaaliyeed oo ay markaas iyagu ka intifaaciyeen haddaba soo dhawaada daawadayaal nagu soo biir haddaad nagu cusub tahay aragtaadana qaybta commentiga inoogu reeb waxaan idin leenahay mar kale barqab wanaagsan